soo dhawaada saaxiibayaal walaalaha Soomaaliyeed sida tooska igala socda baraha bulshada maanta waxaan soo booqday iskuulka Turkisom oo walaalo Soomaaliyeed ay ka fureen dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara xaafadda Kijoran Asartabey iskuulkan waxaa lagu baran doonaa sidii muuqaalka hore aad ugu daawateen waxaa walaalaha Soomaaliyeed aad i weydiinayaan iskuulkan ma caruurtu khaas u yahay su'aashaas waxaan kaga jawaabayaa maya dadka waaweyn way dhigan karaan Soomaalidu wadankan Turkiga waxay u timaadaa si aad u tiro badan iyadoona ay ka qaataan kaarka ama sharciga deganaanshaha maadaama wadankan Soomaalidu ay timaado wadankan lagama hadlo luqadaha kala duwan sida Carabiga, Ingiriiska iyo luqadaha kale ee adduunka ee lagu wada hadlo laakiin wadankan wuxuu khaas u yahay luqadda Turkiga oo dadka gobolkan ama dadka dalkan iskale ay ku hadlaan taas marka waxay khasaba qofku inuu luqadda barto macalinkan Ismaaciil ayaa la dhahaa waa macalin wadankan Turkiga u dhashay isaga ayaa baraya walaalo Soomaaliyeed oo yar iyo waaweyn isugu jira taas waxay ka dhigan tahay in aqoontu aysan lahayn yaraan iyo weynaan wadankan luqadiisa hadii aad barato inta badan Soomaalidu waxay tiraahdaa luqadda Turkiga maxay faa'iido ii leedahay aan ku baranayaa meel kaga ma shaqeysanayo barashada luqadda luqad lagu khasaaraya ma jirto marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay luqadda ha ka faa'iideysteen goobtan oo macallimiin Soomaali iyo maartay Turkiga isugu jirtaaba ay joogan caruurta yaryarna ha looga faa'iideeyo dadka waaweynna ha ka faa'iideysteen su'aasha ugu muhiimsan oo soo laabtay waxay tahay dadka waaweyn ma baran karaan luqadda Turkiga haa way baran karaan waad iman kartaa waana iska diiwaan gali kartaa waxaad kala xiriiraysaa lambarka shaashada ku qoran ayaad ka soo wici doontaa ubadkiinana luqadda bara oo ku dhiirigeliya inay luqadda Turkiga bartaan hooyooyinkuna ha barteen oo waliba hadii hooyadu ay fursad hayso ilmaheeda way soo raaci kartaa way la baran kartaa waqtiga marka luqadda Turkiga barta maadaama wadanka deganaansho aan ku leenahay ku ciishoon meesha hadaad afka wadankan barato wallahi ka Turkiga waa iska celinaysaa meelba geed baa iska saaraysaa. Merhaba, ben İsmail, Türkçe öğretmeniyim. Burada Ankara'da Turksom Eğitim ve Kültür Derneği'nde Türkiye'mize, Ankara'ya misafir gelmiş olan Somali'den çocuklara, büyüklere burada kendilerini idame ettirebilmeleri için ve buradaki Türk insanlarımızla Türkçe konuşabilmeleri için bu dernekte kendilerine Türkçe eğitim veriyoruz. Ve böyle Türkçe eğitimi almak isteyen başka arkadaşları da buraya Turksom Derneği'ne davet ediyoruz. Herkese teşekkür ederim.